Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta ku xiran YouTube channelkayga Sahal Somali Channel. Maanta waxaan idiin wadaa muuqaal kale oo aad u qurux badan oo aan idinkaga diyaariyey xeebta magaalada Boosaaso. soo dhawaada dhammaantiin asxaabta. Haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqatid YouTube channelkayga, fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saartid oo aad rukumatid bartan si aan kugu soo gudbiyo muuqaallo aad u xiiso badan oo aad noola socotid kuwaas. saaka waxaan waa berigii u jirmaaday xeebta magaalada Boosaaso si aan waqti ugu soo qaato idinkana idinkugu soo gudbiyo muuqaal aad u qurux badan oo ku saabsan xeebta. intii aan ku guda jiray waqti qaadashadeeda waxay indhahaygu qabanayeen qoraxda oo soo baxaysa, sidoo kale waxay dhegahayga maqlayeen dhawaqa ka dhalanaya mawjadaha badda. muuqaalkeenna ayaan si toosa u gudageli doonaa. soo dhawaada dhammaantiin. waxaan rajaynaya inaad ku qanci doontaan muuqaalkan quruxda badan ee aan kaga soo duubay xeebta magaalada Boosaaso xilli ay ahayd aroortii hore ee maalintii Jimcada. waa Jimce, saacaddu waxay ku beegan tahay 5:15 AM ama subaxnimo. waxaana ku sugannahay xaxiga hore ee xeebta magaalada Boosaaso. qorraxdii ayaa si toosa u soo baxday. marka ay qabato biyaha badda waxay muujinaysaa muuqaal ama sawir aad u qurux badan. mawjadaha isrogrogaya, shimbiraha dul heehaabaya waxay qayb ka yihiin ama qurux u yeelayaan muuqaalkan aad hadda daawanaysid. runtii haddaan idin dhaho muuqaal baan ku soo koobayaa dhammaan waxyaabihii aan soo arkay, ma ahan wax muuqaal lagu soo bandhigi karo. xeebtan waxay caan ku tahay saxiimadaha lagu sii wado badda. kuwa xaaxiga laga sii riixayo. iyo kuwa safarkooda tooska u bilowday ee doonaya inay kalluun magaalada iyo guud ahaan Puntlandba keenaan. sidoo kale waxaa xeebta subax kasta yimaada dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaas oo doonaya inay ku jimicsadaan xaxiga hore ee xeebta magaalada Boosaaso. iyo kuwo kale oo iyaga laftigooda u yimaada inay kubad ku ciyaaraan. kubaddaas oo laftigeeda ka mid ah jimicsiga jirka u baahan yahay. anigii muuqaalka duubayay xitaa xiise kubadeed ayaa i qaadatay oo markayga ayaan dhinac ula baxay kubadda. halkan sidoo kale waxaa nolol maalmeedkooda u soo raadsada shimbirahan idin muuqda, iyagoo hadba kalluunka soo caariya cunaya oo quud ka dhiganaya.
waxaad moodaa inaan usoo dhowaanay gabagabadii muuqaalkeenna oo mar raba inaan idinkugu dheereeyo muuqaalka. marka aad baan idinkaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan. intaan muuqaalka ay ku kulmeen waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. soo dhowaada dhammaantiin.